nin boqor ayaa jiray nin wasiir oo xakiim ayaa la taliye ahaa la taliyuhu waa mu'min kan kalena waa iska nin caadi mar walbo boqorku wax ku dhaco wasiirka intuu u yimaado wuxuu leeyahay la'allahu khayr inay ku taa laga yaaba gabar baa ka dhimanay khayr inay ku taa laga yaaba dib baa qabsanaya khayr cudur baa imanaya khayr wuu dhibsaday ninkan war naga tag buu yiriniyo wax walba khayr baad leedahay maxaa khayra ma gabadhaydoo dhimatay xaaskaygiyo dhintay cudur ii yimid ano maxaa khayrka sheegaysa waa maxay maalinkii dambe ugaad baa la aaday iyagoo ugaaranaya boqorkii baa ku faya meel buu galayaa god fartii baa jabaysa wasiirkii baa ku ordaya markaasuu dhahayaa khayr inay ku taha laga yaabaa la'allahu khayr wuu xanaaqay godkii baa laga soo saaray wuxuu yidhi war fartii baa ijaban la'allahu khayr war ma fartaydo jabanaad khayr leedahay dhakhtar baa la keenay inuu daaweeyo waxa ugu darneed dhakhtarkii markuu yiri fartan waa la gooynayaa wuu naxay wasiirkiisii buu dib u eegay wuxuu yiri la'allahu khayr hal la gooyeedaa markaasuu yiri kan inkaar qabaha oo wax walba khayr un dhahaya bal haliga xira xabis hala geliyo markii birihii lagu dhuftay ayaa wasiirkii wuxuu yiri xiritaankaygaas la'allahu khayr inay khayr ii taa laga yaabo ord buu yiri xabiskaaga iyo khayrkaaga aduun isu qabe xoogaha kadib fartii markii la gooyay ninkii ayaa bilooyin kadib oo uu raystay ugaad buu haddana aaday xadkii buu ka baxay qolo ilaahoodii u raadinaya qurbaan sanan bay caabudayeen qurbaan bay u raadinayeen ayaa dagaal intay dhex mareen boqorkii baa la qabsaday kuwii kale way ka carareen boqorkii baa inta la xirxiray sanamkii la hor seexiyay dhakhtar baa loo keenay in la eego qurbaankan in la gowraca la doonaya dhigiisana sanamka la marmariyo sidee nicmo ay u dhacdo waa wax ilaahay ku duleynaya ninkii markii la xirxiray boqorkii ayaa waxa loo keenay dhakhtarkii baa eegay luguhiibu ka soo bilaabay ilaa waxa la rabaa waxaan ilaahay loo gowracayo wax saliim oo nabad qaba oo aanan naaqis ahayn inay noqdaan lugihii baa laga soo eegay ilaa markaas waxa la arkay fartiyo go'an waxa la yiri ninkana ogow waa isdhiibay maanta gacan buu ku jiraa birihii iyo mindiyihii baa agtiisa lagu afeynaya waxa la yiri ninkan uma suubado in loo gowraca ilaahay waa naaqise war ninkan naga daaya markii la yiri ninkii wuu farxay markaasuu soo kacay wadankiisii buu ku soo laabtay meeshii ugu horeysay ee uu yimaado xaaskiisii ma ahayn umuunan imaanay xaaskiisii wala ilmihiisii maxaa yeelay qalbigiisa waxaa ku weyn maxay kelmadii uu diidanaa ee maantana badbaadisay khayr inay ku taha laga yaabaadi markaasuu ninkii u tagay wuxuu yiri warniyaho ii kaanu yiri furihi wuu ka furay ninkii buu isku duubay wuxuu yiri niyaho markaad dhahaysay fartaan khayr bay ku tahay oo aan diidanaa khayr bay ilaahay iiga dhigay waa kana oo waan ku soo badbaadiyay maanta laakiin adiga xabiska aad gashay waa maxay khayrka adigii lahaa inay khayr ii taha laga yaabaa xabiskan xorriyadoo liiga qaaday ilmahaygii liiga fogeeyay xaaskaygii liiga fogeeyay shaqadaydii laga joojiyay waa maxay khayrka kugu jira intaas soo dhan wuxuu yiri wax ma ku sheegaa anigu waxaan ku ahaa wasiir caadil wasiir geesi oo naftii hore fulayaalkan ku wardiyeynayay ee ka cararo kale ma aanan ahayn marka haddii aan kula socon lahaa naftaan ku dul dhigi lahaa kuwan markay cararaan anaa kugu soo hari lahaa de waa nalaga xoog badan yahay waa nala qaban lahaa marka xagga nala geeyo oo layna xirxiro adiga waxaad ku badbaadi lahayd fartaada go'an laakiin anigu waa nabad qabaa far ima goona jirkaygu waa saliim anaa la i gowrici lahaa oo meeshaas ma aragtay ku dhiman lahaa marka in aad i celisid oo aad i xidhid xabiska i biraha gadaashooda i marisid badbaaday ii ahayd yaa garanaya sidaa ninka mu'minka garanaya